Soomaaliya way soo laabatay. Dalka Soomaaliya waxaa ka hana qaaday dawlad la aamini karo kadib muddo burbur 27 sano oo dalku ku soo jiray. Waxaa dib u soo laabanaya shacabkii Soomaaliyeed ee ka qaxay dalka iyagoo maalgelinaya dalkooda. waxaa maalinba maalinta ka dambaysa magaalooyinka dalka Soomaaliya ku soo qulqulaya shacabkii Soomaaliyeed ka qaxay dalka. magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya goobaha ay ka hirgeliyeen dadka dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay Soomaaliya ka arkeen inay ka dhalatay dawlad la aamini karo. waxayna ka hirgeliyeen ay maal gashteen dalkooda dhismayaal cusub. Soomaaliya adduunku wuxuu maanta kula macaamilayaa waji ka duwankii hore uu kala macaamili jiray. wuxuu qiray adduunku in Soomaaliya ay ka dhalatay dawlad leh astaan dawladnimo lana aamini karo lana macaamili karo. waxauna adduunku Soomaaliya ka cafiyay deymihii uu ku lahaa isagoo ugu deeqay lacag kale. taasna waxaa Soomaaliya lagu aaminay kadib markii dhaqaalaha dalku uu gaaray meel uusan gaarin intii burburka ahayd ee Soomaaliya iyo dawladihii hore soo maray. dawladda Soomaaliya waxay soo celisay sharaftii iyo maqaamkii ay ku lahayd adduunka. haddii ahaan lahayd Geeska Afrika waxa ay macaamil cusub iyo waji cusub ku qaabishay wadamada Geeska Afrika iyadoo ay qaarkood ay heshiisiisay. waxayna la gashay heshiisyo ganacsi oo faa'iido u ah shacabka Soomaaliyeed. waxaa la dhisay ciidamadii iyagoo la hirgeliyay ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo ciidamada militariga. sida aad ugu muuqataan qayb ka mid ah taariikhdii aan soo dhaafnay. qof walba rajo xumo qabtay waxaan leeyahay maantay qalbigaadu ha ballaarto. haddii qof Soomaaliya uu shaki ugu jiray in dawladda Soomaaliyeed ay ciidan la'aan tahay ama aanay socon dhismihii ciidanka, waxaa halkan hortiina ka muuqda qayb ka mid ah qorshaha fog ee dalka lagu xoreynayo. waxaan Ilaahay idinkaga baryayaa inuu shaqada aad u soo diyaargaroodeen idinku garab galo. waxaan Ilaahay idinkaga baryayaa inaad noqotaan kuwii soo celiyey sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed. waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa in ciidanku ay yihiin kuwa kaliya oo qabyaaladda ka madax bannaan, kuwa kaliya musuqmaasuqa ka madax bannaan, kuwa kaliya oo lagu soo cararo marka ay dhibaato jirto. anigoo markaa ku hadlaya dhammaan magaca madaxweynihiinna oo aniga soo wakiishay iyo taliyayaashiinna iyo wasiiradiinna, waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. sidoo kale waxaa wax si free ah laga dhigay waxbarashadii oo horay u ahayd lacag. waxaana dugsiyo badan ay la wareegtay dawladdu iyagoo dhallaanka Soomaaliyeed ay wax ku baranayaan si free ah. ma
waxaan idin rajaynayaa imtixaanka qof walba halkan fadhiya inuu keeno buundada ugu fiican macnaheedu waxay tahay inaad aad u shaqayseen aad wax u barateen xalay iyo habeen hore iyo kulli inaad soo jideen soo maaha oo qof walba halkan fadhiya uu rajaynayo inuu helo buundada ugu fiican soo sas maaha anna waxaan idin rajaynayaa buundada ugu fiican inaad heshaan maxaa yeelay waxbarashadu waa qofka noloshiisa waa indhaha qofka waa iftiinka bini'aadanka waa horumarka qofka bini'aadanka ah macnaheedu waxay tahay qofku markii maskaxdiisa korto loojigiisa iyo macquuliyadiisu waa fiicanta qofka haddii wax loo sheego markiiba wuxuu samaynayaa xisaabtan wuxuu leeyahay waxaani wax dhab ah miyaa mise waa wax khaldan waa fahamteen soo ma marka waxbarashadu keliya intaas keliya ma aha qofka noloshiisa wax badan iyo ka beddeshaa haddaad doonaysaan shaqo fiican inaad heshaan waa inaad tacliin leedahay haddaad doonayso mushaahar fiican inaad qaadataan oo horumar fiican aad nolosha ka gaartaan qofku waa inuu waxbarasho leeyahay ahmiyad weyn ayay noo leedahay inaan idin siino waxbarasho tayo leh maxaa yeelay waxbarashadu waxa weeye waa aasaaska qofka bini'aadanka ah marka hooyo walbaba iyo aabbo walbaba inaysan marna ka walwalin waxbarashada carruurtooda insha allah hadduu ilaah yidhaahdo qof walba oo soomaaliya oo dhallinyaro ah oo maxaan ku rahdaa da'diina oo kale ah waa inuu iskool u kalaho waa inuu qalin buuq qaato waa inuu wax barto marka waxaan rajaynayaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo iskuul sarana aad jaamacado ka aadaan jaamacadaha markaad dhammaysaanna aad tihiin mustaqbalka dalkan uu leeyahay maxaa yeele mustaqbalka dalkan waa idinka Soomaaliya waa ay soo laabatay